sidaan ognahay jamciyadda Nahrayn mar walba waxay u taagan tahay inay garab istaagto dadka dhibaataysan dadka Soomaaliyeed iyo dadka wanaagga jecel ee na soo gaarsiiyay deeqdani waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaan leenahay kuma filan dadkani waxa hadeer aan siinayno ah qoyskiiba 10 kiilogaraam bariis ah iyo kiilo saliid waxaan jecelnahay mar walba dadkan in la garab istaago si noloshoodu ay u noqoto nolol ku dheehan farxad iyo caafimaad dadkani qoysaskani dhibaataysani caruurtooda aad ay u xanuunsan yihiin qaarkooda ma lahan caafimaad ay ku noolaadaan guud ahaan xaaladda waxaad ka dheehan kartaan wajiyada dadka barakacayaasha jamciyadda Nahrayn ayadoo jecel inay taakulayso dadka masaakiinta haddana ma haysato awood dheeri ah ay garab istaagto dadkani dhibaataysan waxaan jecelnahay markaad aragtaan muuqaalada rasmiga ah ee ka jira xerooyinka barakacayaasha ay ku oodan yihiin kuwaas oo waliba kuwa ugu dambeeyay ka soo barakaceen awaarihii dalka ka jiray waxaan jecelnahay in garab lagu siiyo noloshooda hoygooda iyo cuntadoodana laga fikiro deeqdani gaaban qoyskiiba ku soo toosaysa 10 kiilogaraam oo bariiska iyo litarka iyo barka saliida waxa soo gaarsiiyay dad ka naxay dadkan walaalahooda dhibaataysan kuwaas oo ku nool qurbaha waxaana jecelnahay inay sii wadaan xaqiiqadana ay ka salgaaraan nolosha rasmiga qaxootiga ka dhex jirtana waa nolol baaba ah waxayna u baahan yihiin markasta in la garab istaago waa meesha wax la isku qabtana waa adduunyo aakhiro waa ninba camalkiisa adduunyo intay joogaan dadkani looga faa'iideysto ama la siiyo shaqooyinkay u baahan yihiin si aakhiro